uu safar dibadda ka soo laabtay waxaa ka qayb galay ku-xigeenkiisa iyo inta badan xubnaha golaha wasiirada maamulka Puntland. qodobada ugu waaweyn ee shirka lagu soo qaaday waxaa ka mid ahaa 15 bishan oo la filayo in magaalada Garowe uu si rasmi ah uga furmo shirka maalgashiga Puntland oo ay ka qayb galayaan ganacsatada ku sugan gudaha dalka iyo dibaddiisa. qabanqaabada shirka maalgashiga Puntland oo ka socota iminka magaalada Garowe waxaa laga dareemayaa gudaha magaalada iyadoo garoonka General Abshir ay ka soo degayaan wafuudii ugu horeysay ee la filayo in 15 bisha ay Garowe ka qayb galaan shirka maalgashiga Puntland. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shirka xukuumadda madaxtooyada magaalada Garowe ka qabsoomay ka sheegay in loo baahan yahay in madaxda ugu sarreysa maamulka Puntland ay heegan buuxa u galaan sidii ay magaalada ugu soo dhaweyn lahaayeen wafuudda kala duwan ee shirkaasi ka qayb galaysa. madaxweynaha ayaa sidoo kale faray ciidamada ammaanka inay sii kordhiyaan howlgalka baaritaanka ah oo ay ka sameynayaan magaaladaasi isla markaana si weyn loo adkeeyo amniga caasimadda ilaa inta laga qabanayo shirka maalgashiga oo 15 bishan si rasmi uga furmi doona magaalada Garowe. arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo magaalada si weyn looga dareemayo qabanqaabadii ugu dambeysay ee qabashada shirka iyadoo ciidamo gaara loogu talagalay inay adkeeyaan shirkaasi maadaama mas'uuliyiinta laamaha amniga Puntland ay ciidamo sugaya amniga magaalada Garowe ay u sameeyeen dhawaan gudaha magaaladaasi.